السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا مد كلا أو كمدا مقالة دينا ندين كله وداقيو بربارسما channel. بربارسما channel هذه يتشير وحان ندين كسو قد بيا موضوعية دا كسابسان بربارنتا يتربية وناكسان عرورتا لرجلين توالدين تا iyo waliba inagu kusoo kordhinay baryahan wararka ama dhacdooyinka ku saabsan dhinaca caruurta gaar ahaan dalka Jarmalka iyo guud ahaan adduunka oo dhan intaba markan muuqaalkeenani waxa uu ku saabsan yahay warar laba war oo aan isu kin raacin doono ama laba dhacdo oo aan isu kin raacin doono kana dhacay dalka Jarmalka gudihiisa. dalka Jarmalka gudihiisa waayadan waxa aad iyo aad ugu soo badanaya dilalka dhinaca caruurta ama iyagu ha isdilaan ama waalidkood ha dilo ama cid kaleba ha dishe. labadii maalmood hadda la soo dhaafay oo sabtidii iyo axadii ahaa oo lagu jiray fasax ayaa waxa laba caruur ah gurigooda laga helay iyagoo meyd ah. ilmo laba wiil oo midna yahay 9 jir midka kalena yahay 7 jir oo walaala ah ayaa waxa loogu tagay iyagoo meyd ah gurigooda kadib markii uu qof soo wacay laanta booliska oo uu sheegay in ay laba caruur ah ay halkaasi meyd ku yihiin. waxaad isweydiinaysaa labadan caruura waxa la eegay meydkooda waxaana la sheegay in ay ilaa salaasadii meyd ahaayeen isla markaana aqalka dhex yaaleen. meydka salaasadii la dilay sabtidii la soo sheegay iyo axadii waxay noqonaysaa salaasa arbaca khamiis jimce sabti 5 maalmood ugu yaraan ama 6 maalmood inay labada caruur ah oo meyd ahi ay gurigaasi dhex yaaleen. haddaba waxaad u malaynaysaa caruurtaasi inay sidee u dhinteen. caruurtan waxaa la hayaa hooyadood oo ah 43 jir isla markaana ah gabadha soo wacday laanta booliska ee kusoo wargelisay inay caruur meyd ahi gurigaasi yaalaan taasoo la sheegay ama lagu tuhmayo ama lagu eedeynayo in ay iyadu dishay falka dilkaasi na iyada loo hayo. tan kale ayaa waxa ay tahay nin ayaa inantiisii oo 7 jir ah maalintii axadii oo shalay ah ku dilay midi. dalka Jarmalka waxa aad iyo aad ugu soo badanaya inay waalidiintii isku buuq xoog ah ku dhacay depression fara badan jiro xaalado adag oo maskaxiyana ay jiraan taasoo ku kalifaysa inay caruurtii ka takhalusaan. haddaba labadan war ee aan idiin soo sheegay waxa aan doonayaa inaan idinku baraarujiyo. waxaynu arkaynaa hooyooyin Soomaaliyeed oo dalka Jarmalka ku sugan iyagana aynu arkayno xaaladaha ay ku jiraan oo ah xaalado dagaal, isdil, isjijiidasho, cay, rafaad iyo buuq. waxaan idin odhan lahaa ama idinku baraarujin lahaa waalidiinta halkan iga daawanaya inta i daawanaysana aan ka codsan lahaa inay sii sheergareeyaan in waalidiinta Soomaalida khaasatan hooyooyinka qof kasta oo xiriiri dareemaya ama culays dareemaya ama isfahmi waaya xaaladda uu ku sugan yahay waxaan idinka codsanayaa intaydan ama naftiina dilin ama caruurtiina dilin in aad caawimo iyo dhakhtar raadsataan. maskaxdu waa qayb ka mid ah jirkeena. maskaxdu waa qayb u bukoon karta sida gacantani ay kuu xanuuni karto. haddii gacantan aad ka jabto ama aad ka xanuunto ama cididaasi wax ku noqoto waxaa laga yaabaa inaad isla markiiba dhakhtar ku caraarto ood meel aad ka soo dhaydo oo falastar lagugu soo duubo aad ka doonato. haddaba maskaxduna waa sidaas. dhaawacaas
gacanta kaa gaadhay ee aad falastarka la doonan lahayd haddii uu dhaawac yar oo leeg maskaxda kaa gaadho oo aanad la cararin dhakhtar u tegin oo aanad isdaweynin dhaawacaasi wuu fidayaa wuu durkayaa sida ka gacantuba haddii aanad daweyn lahayn oo intuu qurmo u durki lahaa kadibna laga yaabo in fartaba loo jari lahaa ama gacanta oo dhanba uu naafo ka dhigi lahaa. haddaba xanuunkaa yar ee maskaxda gaadhay haddii aanad intaad cararto dhakhtar la doonan caawimaad raadsanin meesha aad isleedahay ee gargaar baad ka helaysaa ay kuugu dhow tegin wuxuu noqonayaa mid maskaxdaada ku faafa oo aad gaadho xaalad aanna laga soo kaban karin kugu kalifta marka dambe inaad adigu isdisho ama wax disho. waan ogahay in badan oo idinka midi inay iminka odhan doonaan waa qof imaanla waa inuu qur-aanka akhristo waa inuu tukado iyo ma garanaysaa dhinaca diinta way fiican tahay laakiin dad badan oo tukanaya oo qur-aanka akhriyaya oo intaasoo dhan samaynaya ayaa haddana dhaawac maskaxda ah uu soo gaari karaa amaba qaba. haddii qur-aankaaga iyo ma garanaysaa salaadaada iyo waxaasoo dhan adoo samaynaya haddana aad arkaysid inaanad ka soreyn lahayn dhakhtar baad u baahan tahay. isdaweeya ayaan idinkula talin lahaa. intay daawanaysana sii shaargareeya ayaan idinka codsan lahaa. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa dhacdooyinkan iyo qisooyinkan. anigu ma jecli qisooyinka naxdinta had iyo jeer inaan soo gudbiyo hase hatee ee codsi idinka yimid fulinteeda iyo weliba anoo jeclaystay qiso kasta ama war kasta ama dhacdo kasta in aynu wax ka faa'iidaysano oo aynu isku baraarujinno ayaan insha allah idiin soo gudbin doonaa dhacdooyinka dalka Jarmalka ka dhacaya aad iyo dilalku ayay dhowrkii bilood ee imika u dambeeyay sanadkan intuu bishii afraad baa la marayaa. 4 bilood tiro iyo cadad ma laha inta caruur ah ee ama iyagu isdilay ama waalidkood dilay ama ilmo kale oo iyaga leegi u dilay. waxyaabaha kalifaya iyo waxyaabaha sababayana waxyaabahan aynu sheegnay baa ka mid ah ee caafimaadka maskaxda. waxyaabaha kale ee caruurtu inay iyagu ilmo kale dilaan ama isdilaan loo sababeynayana waa idinla wadaagi doonaa insha allah. kommentaarka kusoo qora haddii aad xiisaynaysaan si aynu uga feejignaano oo aynu ugu baraarugsanaano caruurteenna. tan iyo kulanti dambe inagoo isugu nimi mowduuc kale ama war kale ama dhacdo kale insha allah waxa aan idinkaga tegayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.